madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose kulan maanta iskugu yimaadeen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo fashil ku dhamaaday musharax Cabdullaahi Sheekh Axmed oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland shirkii maamul samaynta gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Baydhabo ardayda wax ka barata qaar kamid ah iskuulada ku yaala Ceerigaabo oo deeq gaarsiiyay halka ay ka socoto dhisidda wadada Ceerigaabo iyo wararkii ugu dambeeyay ee wadankan Britain qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena qadar xayeysiisa kadib u diyaar garooba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال ميل كستو نغا داونيسان كسو دوادا وركا رويال تي في او سيتو سيدين كاga imaanaya استوديو magaalada London warkana waxa idila socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi Salaada madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo horinta la horinayo dagaaladaasi faafahinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya inooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Jiijile iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose dagaal beeleedyo dhexmaraya beelo walaalo oo halkaasi wada dega ayaa maanta waxa shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay dagaaladii halkaasi ka dhacay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay bari ka tahay dagaaladaasi ayna gacan bir ah ku qabanayso kooxaha horinaya dagaalada halkaasi ka dhacaya waxaan ka hortageynaa oo qabanaynaa kuwa fidna wadayaasha ah oo colaadda ka shaqeynaya waxaan rabnaa shacbigu inay nala gartaan kuwaas inaanay reer hebel noqonin reer hebel oo muxuu ahay loo dan leeyahay inaanay noqonin waa fidna wadayaal dawladuna talaabay ka qaadi doontaa dhammaan dawladuna arinta colaadaha socdaa dhinacay ka tahay waa ka soo wada jeedaa ka soo horjeedaa waana u wada taagan tahay haday baarlamaan leedahay iyo haday xukuumad leedahay ba intaba wax garadka maxaan ku raadayay indar garadka odayaasha dhaqanka nabadoonnada bulshada inteeda kalena waxaan ka codsanayaa dawladda in lagu gacan siiyo propagandada iyo waxyaabaha ay cadawgu isticmaalayaan iyo sirqda ay noo dhigayaan waa inaanan ku dhicin on ka tallaabsanaa oo aan u gudubnaa nabadeynta iyo wada hadalka iyo dawlad dhisidda dalka inaan dawlad shaqaynaysa ka wada dhisnaa u socono in caqabadahaas jidka noo dhigahay waa cadawga ujeedadiisa aan garanno aan sidaas uga saabsano mar kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed intii colaadaas nooga dhimatay aad iyo aad aan uga xunnahay waa ka murugoonayna waa tacsiyad u direynaa eheladii dadkooda ku weysay madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in colaadaha ay geysteen dhibaatooyin aad u fara badan isagoona ugu baaqay dadka degan gobolada ay colaadaha qabaliga ka socdaan inay dagaaladaasi joojiyaan maanta marka waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan kuwa ku nool Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Hiiraan iyo meel kasta kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtaay waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo 20 sano in ka badan oo colaad sokeeya kadib wali inay dad u sii xiisa qabaan in ay dhiig walaaleed ay daadiyaan waa arin aad iyo aad u xanuun badan dawladuna ay aad iyo aad uga xun tahay waxa kale oo intaas dheer dadka colaadahaas horinaya kuwa ka shaqeynaya kuwa ku saacidaya dhamaantood waa dad nidaamka dawladnimada nabadeynta dawlad dhisidda horumarka maanta dalka ka socdaay iyo soo kabashada dawladnimada Soomaaliya dad runtii oo si uga soo horjeedo oo rabaan inay si u hakiyaan marka sariiqdaasna loo dhigayaa dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan shirka jaraa'id ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeeyay oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose dagaalo u dhaxeeyay beeleedyo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Jiijile Royal TV magaalada Muqdisho
kulan ay iskugu yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee Cabdiraxmaan Faroole iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta waxa uu ku soo dhamaaday fashil. kulankani oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa markii labada dhinac iskugu yimaadeen kadib waxa ay isla fahmi waayeen qodobadii laga wada hadlayay. shir jaraa'id oo qayb kamid ah musharaxiinta ay ku qabteen magaalada Garowe ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole uu sabab u yahay burburka ku yimid shirkaasi. faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheena Cabdishakuur Shaasha. musharaxiinta u loolameysa jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland iyo waliba madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee dowladda Puntland halkaasi oo ahayd madal ay u balansanayeen musharaxiinta iyo madaxweynaha inay kaga wada hadlaan arrimaha ay isku hayaan labada dhinac oo ku aadan guddiga khilaafaadka uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole. hase ahaatee kulanka ayaa qodobkii koowaad isaga hor yimi isagoo aanan wax natiijo ka soo bixin isla markaasina aan lagu heshin qodobadii la isku hayay. haddaba musharaxiinta u loolameysa jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland ayaa markii uu kulankani soo dhamaaday waxa ay shir jaraa'id ku qabteen xarunta BDRC isla markaasina waxa ay kaga hadleen khilaafka madaxweynaha iyo musharaxiinta ay ka gaareen kulankii maanta. afhayeenka musharaxiinta u loolameysa jagada madaxtinimo ee dowladda Puntland Cali Xaaji warsame ayaa saxaafadda la hadlay waxaana hadaladiisii uu ku bilaabay sida tan. waxaan ka wada hadalay arrimihii aan u arkaynay inay muhiim tahay inaan ka wada hadalno si Puntland ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah. waxaanu soo jeedinay qodobka ugu horeeya oo ah inaan guddiga khilaafaadka oo muhiim u ah doorashada Puntland aanu si wada jira oo iswaafaqsanaan u wada magacawno. waxaanu soo jeedinay in guddigii marjaca ahaa ee isimada oo noqon lahaa guddiga u dhaxeeya musharaxiinta oo dhan ilaalinta doorashada iyo guddiga khilaafaadka kaasna aan la dhammaystiro si wada jira ismadoo dhan. waxaanu soo jeedinay inay joogaan dad goobjoogayaal gudaha ah sida civil society-ga bulshada rayidka iyo kuwa dibaddaba ah. waxaan kaloo soo jeedinay in loo sameeyo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen labada guddi guddiga khilaafaadka iyo guddiga marjaca. nasiib daro madaxweynuhu waa naga ogolaan waayey qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa inaanu isla magacowno guddiga khilaafaadka taasoo annagu aanu maantay isku daynay inaanu si aan u ilaalino maslaxadda dalka iyo dadka si aanu u ilaalinayn doorasho xalaal u dhacdo inaanu xaq u leenahay inaanu guddigaas isla wada magacowno. taasina waxay keentay in shirkayagii maanta uu sidaa ku dhammaado oo wax wada hadala oo dambe uusan dhicinin. waxaanu caddaynaynaa inaanu diyaar u nahay wada hadal, inaanu diyaar u nahay cid alla ciddiina dhexdhexaadinaysa, cid alla ciddii ka qayb qaadanaysa doorashada Puntland inay xalaal noqoto. waxaanu u soo jeedinaynaa isimada inay dowrkooda qaataan kana shaqeeyaan sidii khilaafka loo xalin lahaa. dhanka kale Cabdullaahi Saciid Samatar oo ah mid ka mid ah musharaxiinta u loolameysa jagada madaxtinimo ee Puntland ayaa isna geestiisa ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. waxaan ku tagnay flexibility baan muujinay qodobada waliba si u kala horeeyeen baanu u kala hormarinay. qodobka ugu horeeyay baan runtii isku khilaafnay tan kuwa kaleba la gaarin waana qodobka runtii ay ku dhisan tahay doorashada xalaasha ah. horeen ma ogeyn guddiga xalinta khilaafaadka muhiim buu ahaa horaa la isugu qabtay doorashadii hore oo Cabdiraxmaan ka qayb galay oo madaxweynaha ku noqday gudoomiye u ahaa murashaxiinta oo dhan. waanu haynaa hadalkiisi baa la hayaa, warqadihii la qoray baa la hayaa, sidii loo kala qeybiyo cunna isimadaa dhex galay wax walba waanu sheegnay. annaga dhinacayaga waxaanu muujinay flexibility furfuraan baanu muujinay. ma rabno annagu muxuu ahaa buuq ma rabno, Puntland dhibaato uma rabno, doorasho xalaalaanu rabnaa. waxa weeye dhinaciisa ayay ka timi si walba waa u sheegnay maanta dhinaciisa ay ka timi cadeen diidmadu dhinaciisa ay ka timi. waan ku nool noqonnay ilaa dhowr jeer oo kale taagayaan ku nool noqonnay ahleen bedel mowqifkaada bedel waa naga diiday. waxaan marka dadweynaha u sheegaynaa waxaan kala kulanay baan u sheegaynaa, waxaan international community u sheegaynaa waxaan kala kulanay. waxaan jecelahay sidii horeba khilaafaadka ay soo dhex geli jireen isimadu inay soo dhex galaan ayaanu jecelahay.
kulankan ay u ballansanaayeen musharaxiinta iyo madaxweynaha dowladda Puntland ayaa laga filayay inay ka soo baxaan natiijo ay isugu soo dhawaadaan ama ayba ku heshiyaan labada dhinac ee madaxweynaha iyo musharaxiinta hase ahaatee waxa uu noqday mid ku soo dhamaaday is-afgaranwaa iyadoo la isaga hor yimidba qodobkii ugu horreeyay oo dhex yaalay cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaashaa telefishinka caalamiga Royal Garowe Puntland Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta waxa ka furmay wajigii labaad ee shirka maamul sameynta gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaas oo ay ku soo qulqulayeen barihii la soo dhaafay ergooyinka kala duwan ee ka qayb galaya shirkaasi kuwaas oo iskaga kala imaanayay 6 gobol ee la doonayo in maamulka loogu sameeyo halkaasi faafahinta warkaasi waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Geesay munaasabadan maanta lagu qabtay hoolka weyn ee shirarka ADC isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin aqoon-yahano xildhibaano malaaqyo ugaasyo suldaano iyo dhammaan ergooyinka ka kala yimid Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa loogu dhawaaqay wajigii labaad ee furitaanka maamul sameynta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya munaasabadan ayaa ugu horeenba qaybaha kala duwan ee bulshadu ergooyinka ka kala yimid gobolada dalka siyaasiyiinta aqoon-yahanadu ee halkaasi ka jeediyeen fikrado ama khudbado dhaadheer waxaana halkaasi lagu furay heeso markaasi hidaha iyo dhaqanka ah oo haweenka ku dhaqan degmada Baydhabo ku soo dhaweynayeen munaasabadani qaar ka mid ah malaaqyada iyo ugaasyada halkaasi ka hadlay ergooyinka gobolada ee halkan ku sugan ayaa inta badan waxay ahaayeen kuwa markaasi isku mowqif ah isla markaana taageersan in la sameeyo maamul sameyn Koonfur Galbeed 6 gobol Soomaaliya 6 gobol lanki danagoyow oo doogay dheegaw oo doogayna dheegaw wadanka ka sugan inay ku qayb galo lanki darsaado kale ilanki walkiin kale lan la xaqraaw ma lan walba xaqshay ka qaadade durun dhamaadi been dhamaati dooruga iniska kooyaan warka inta gaabay shirkana furinya markaas ogaada sawa billahi tawfiq waxaan leeyahay waxay loo soo awar adeegay oo maanta 6 gobol Koonfur Galbeed inay maanta furun tahay waxaanu leenahay inta badan soo raaca inta yaray inta badan soo raaca inta yaray 6 gobol ayaana deeqdeen 6 gobol aan dhisan ayaan way ku fikireen maanta inay ka dhisaan 6 gobol ee dawladda Koonfur Galbeed inay ka dhisaan dhidabada u taagaan baa ku ayidnay way ku amaanan yihiin maalinba wax baa inala siman wixii dhaafay wayna dhaafeen waa ka shalaayayna waxa maanta inala siman waxa weeye intaan midowno gacmaha isqabsanno oo aan maamul adag samaysanno oo 6 gobol ah waxaan ku faraxsanahay oo aanu qalbigayagu aad iyo aad u soo jiitay sida shucuurta iyo wanaagga iyo sharafta leh ee aad noogu muujiseen haddii aad tihiin reer Baydhabo inaad diyaar iyo daacad u tihiin hirgelinta maamulkan 6 gobol ee la isku yiraahdo 6 regional states of Somalia waxaan u malaynayaa maanta waxaan bilownay hawsheenii u horeysay oo aan fadhinay halkan in badan waxaan u malaynayaa shirki maanta in la furay shirka loo yimid 6 gobol Koonfur Galbeed waa loo dhan yahay horta waxa waaye wixii dhimanna waa soo dhameystirmaa insha Allah haddii Ilaahay idmo waxaa maanta inoo bilowday ee noo furmay feeskii labaad ee shirka maamul sameynta Koonfur Galbeed muddada sanadka ay fidhiyeen iyo qiibo shal duwan ee ururada bulshada oo koreeyaan ururka haweenka oo udub dhaxaadan ee hoolunku dareertay guud ahaan gobolka Baay gaar ahaan degmada Baydhabo may fadhiyeen mahad gaar inaga waxaad iga dhaweysanaysaan oo ay kala dardaarma midnimo isku xirnaan cadaalad sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo munaasabadaasi hadal gaagaaban ka jeediyay ayaa iyaguna waxa ay sheegeen haatan iyo wixii ka dambeeya in si toos uu furan yahay wajigii labaad ee shirka maamul sameynta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya hore looga hadlay dastuurka wuxuu qabo in federaalka la ogol yahay
haddee wax oo waxaa ku dhaqaaqaysaan dastuurkiina ogol yahay waxaa ku socotaan waddadiina ligobol diida sadde gobol la aqoonsado keebkaas usuleey og unama ojiini maana ma niinshaadi maana ma la ojiini waana beemo walenow shirka qaybtiisa labaad oo furmaayo inaan goobjoog ahaanu farxad weyn oo ah koonfur galbeed guul aan leenahay guul eedaan ka faraxsanna waliila ku yaabay qofkooba faraxa ku badan yihiin marka hataa si hadalka ku dodol dhawee waayo waliin argaane ummadii Soomaaliyeed oo una ku jeedni oo geeg Aisha ku talati oo Ilaahay muwaafaqasay laakiin way ogaadasana hadii una midaysana dhamaanteena xidhibaano iyo intaba kulligeena midaysano qof walko qaad kara ma jiro deegaanadan intaba annaga way soo jeedina xidhibaan ahaan wixii istiraatiiji ay wixii kala baahnay ragay oo rayay ka hadalay dawladda Soomaaliyeed waa in ka baaqaanee shirka kan oo lixda gobol in ay daneeyaan wadan maanta loogu dhawaaqay in dib loogu furay hoolka weyn ee shirarka ee ADC-da ku dhawaaqis maamul goboleed koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa noqotay midii ugu ballaarneed oo ay ka soo qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin xildhibaano iyo waxgarad kale kuwa oo ka kala yimid gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya Xuseen Nuurgeesay Royal TV magaalada Baydhabo musharaxa u taagan jagada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaas ay ka soconayaan shirka la doonayo in ay iskugu yimaadaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee Puntland ee loogu baaqay in ay iskugu yimaadaan magaalada Garowe faafahinta warkaasi waxa magaalada Garowe nooga soo diray wariyeena Cabdishakuur Shaasha musharaxa madaxtinimo ee dowladda Puntland mudane musharax Cabdullaahi Sheekh Axmed Maxamuud Cadde ayaa soo gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland maalinnimadii maanta ahayd boqolaal dadweyne ah oo ah taageerayaasha musharaxa madaxtinimo ee dowladda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed Maxamuud ayaa waxa ay kaga hortageen meel magaalada Garowe u jirta 15 kiiloomitir markii uu soo gaaray musharaxa madaxtinimo ee dowladda Puntland mudane Cadde magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxa uu salaan la dhex qaaday taageerayaashii soo dhaweyntiisa u diyaar garoobay isla marhaantaasina kaga hortagay meel ka baxsan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland kadib salaantii uu la dhex qaaday musharaxa ayaa waxa loo soo galbiyay guriga uu ka degan yahay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland hase yeeshee musharaxa ayaan loo galbin gurigii loogu talagalay in la geeyo sababo jira awgeed waxaana musharaxa loo kaxeeyay guri kale oo isla markaasi loo qaban qaabiyay musharaxa madaxtinimo ee dowladda Puntland mudane musharax Cabdullaahi Sheekh Axmed Maxamuud ayaa u mahad celiyay dhammaan taageerayaashiisii ka qayb qaatay soo dhaweynta isla markaasina sheegay inuu aad ugu mahad celinayo intii soo dhaweysay isla markaasina ay jiraan kulan uu la qaadan doono shacabka waxaana musharaxa hadaladiisii ka mid ahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadkay soo dhoweeyey madaxda dhaqanka haweenka dhallinyarada culummada dikriyaysa maasha allah aad baad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay waa magaaladeedii Garowe waa magaaladeedii waa meeshaan ku dhashay waa inaan imaadana waa ku faraxsanahay waynuna is arki doonaa haddii ilaahay idmo waxaan ku soo koobayaa inaan idin mahadnaqo mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalmihii ugu dambeeyay waxa magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ku soo qulqulay musharaxiinta u loolamaysa jagada madaxtinimo ee Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed Maxamuud Caddana waxa uu kamid yahay musharaxiinta sida weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland qaar kamid ah taageerayaashii soo dhaweeyay musharaxa ayaa waxa ay ku cayaareen goobtii soo dhaweynta boodo iyo ciyaaro kale oo aad u fara badan
musharaxa madaxtinimo ee dowladda Puntland mudane musharax Cabdullaahi Sheekh Axmed Maxamuud Cabdi ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u loolamaysa jagada madaxtinimo ee Puntland isla markaasina sida weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha telefishinka caalamiga Royal Garowe Puntland Soomaaliya. ardayda wax ka barata qaar ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Ceerigaabo ayaa maanta deeq iskugu jirta lacag iyo xoolo nool waxa ay gaarsiiyeen halka ay ka soconayso wadada la dhisayo ee Ceerigaabo. faafahinta warkaasi waxa Ceerigaabo inooga soo diray wariyeen Cabdullaahi Xuseen Darwiish. dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Imaam Shaafici magaalada Ceerigaabo oo ka mid ah dugsiyada ugu tayada waxbarashada fiican gobolka Sanaag ayaa maanta deeq lacageed oo dhan $3,400 iyo waliba xoolo nool ku wareejiyay guddiga qaadhaan dhismaha wadada Ceerigaabo. munaasabadii wareejinta deeqdan lacageed iyo xoolaha nool oo lagu qabtay hoolka shirarka dugsiga Imaam Shaafici ee Ceerigaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay guddiga dhismaha wadada Ceerigaabo, madaxda maamulka gobolka, mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, madax dhaqameed, waalidiinta iyo maamulayaasha macallimiinta iyo waliba boqolaal ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Imaam Shaafici magaalada Ceerigaabo. waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay maamulayaasha dugsiyadan hoose dhexe iyo sare ee Imaam Shaafici Saciid Axmed Cali iyo Cabdiraxmaan Xuseen Farjar kuwaas oo ka warramay qadarka lacageed ee wajiga koobaad ay ka qayb qaadanayaan qaadhaan dhismaha wadada Ceerigaabo. lacagta doolarka ee iskuulka Imaam Shaafici uu wareejinayo oo ah $3,400 oo waxa weeye $2,000 iyo $8,600,000 oo laana Soomaaliland ee ku wareejinay wadada. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha guddiga qaadhaan wadada Sanaag oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha guddiga wadada Boqor Maxamed Boqor Axmed iyo Saciid Maxamuud Ismaaciil Bidaar kuwaas oo maamulka dugsigan iyo ardaydiisaba ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan ka qayb qaadashada dhismaha wadada gobolkan ugana mahad celiyay deeqdan ay maanta ka gudoomeen. waxaan ka wareegnay dugsiyada dhexe hoose iyo sare ee Shaafici lacag dhan $2,400 iyo $8,600,000 oo Soomaaliland shilin ah oo qaadaankii wadada ay ugu deeqeen. waxaa iyaguna munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaji Xasan iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo isagu munaasabadan soo gabagabeeyay. sekondariga Shaafici way ka dhantay lacagtii way maatay iskuulka hoose dhexe waxaan dareemayaa in wax ku maqayin isaga weli weydii socota waxaan u qaadanayaa inaan maanta idinka gudoomayno hal bil laakiin weydii soconaysa waxaanu halka isugu nimi wadada oo qaadhaan urunteedii socoto waxaan u malaynayaa waxa hadeer koobka haysta bahda waxbarashada iyagoo meel kasta ay joogaanba u faydan inay bixiyaan qaadhaanka wadadaas oo ah maanta mid inagoo gobolka Sanaaga oo wadada Sanaag loogu magac daray awdal waa laga ururinayaa oo Gabiley waa laga ururinayaa oo Berbera waa laga ururinayaa oo meel walba waxa weeye dadku waa u soo wadadu waa wado horumarinta dalka Soomaaliland oo dhan. waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish telefishinka caalamiga ee Royal TV Ceerigaabo.